guddida fulinta dowladda hoose uu hormuud u yahay duqa caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteeko ayaa munaasabad harimo sharafeeda u sameeyay guddidii u qaabilsaneyd dhexdhexaadinta xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale caare oo ay soo afjireen isla markaana guulaga gaadhay waxaana ka soo qayb galay harimo sharafeedka loo sameeyay guddidaasi xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland mas'uuliyiin kala duwan iyo sidoo kale madax dhaqameed iyo marti sharaf aad u tiro badan ugu horreyn mas'uuliyiintii kala duwaneed ee halkaas ka hadashay ayaa guddida soo dhaweeyay isla markaana uga mahad celiyay duqa caasimadda Hargeysa iyo guddidiisa fulinta u mahadnaqayaa maayarka caasimadda Hargeysa maayar ku-xigeenka iyo xoghayaha oo ah tiimka guddiga fulinta la yiraahdo oo ninkii xagxaganayaaba xagxagtee daadooda iyo magaalada xukuumaanba ku wanaagsan waxaan marka kale u mahadnaqayaa علي عمر حسن قوليد وأهم الكلاه وديل كان سببت عاسلوس قبطي مناسبة عسومة اللوغسو دوينيو نبضي وناكسريد يعدي كشقيسي عيرقابو أرنتي هوشاسيك عيد الله عدي كستا كشقيسي وأيوه رئيس حكومته وأنفر أحسنها هاي إن ما أنت دمانتي المرخاتي كان نقولنا arrinkii wanaagsanaa ee madaxweynuhu hormoodkay ugu ahaa mahadnaqayaa xafladda sida iga muuqata qoladii reer Ceergaabo ama Sanaaga la yiraahdo ee nabadda ka soo shaqeeyay waxaa kaloo halkan ku xusayaa dowladda hoose ee Hargeysa ama mayorkeeda oo dadka la isku yeelay maanta oo qadada sameeyay waxaan sidii rag horaba ay sheegeen uma hadlaqaynaa cidii soo qaban qaabisay xafladan quruxda badan leh ee milgaha ee taariikhda loo gali doonta oo ay ugu horeeyaan duqa magaalada Hargeysa xogayaha iyo guddigiisa fulinta iyo xildhibaanada golaha deegaanka ee Hargeysa waa xaflad aad u taariikhi ah oo lagu bogaadinayo ama lagu dhiirigelinayo madaxdii gobolka Sanaag ee nabadda xiray marka ugu horeysa waxaynu u mahadnaqaynaa duqa caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo golihiisa deegaanka Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid iyo golihiisa hab maamuuska sharfan ee maanta halkan lagu maamuusayo guddigii Ceergaabo ee wanaagga iyo nabadda dhaliyay waxaa la xafladan maanta maayarada dowladda hoose Hargeysa maayar ku-xigeenka xoghayaha ayaa qadadan u sameeyay Ceergaabo Sool Sanaag nimanka ka yimid odayaasha ah ee uu hogaaminayo gobernatore Timbro iyo oday Ismaaciil maayarka maayarada ugu weyn ilaahay qulubteena isku soo jeediyo Soomaaliland qulubtooda Allah isku soo jeediyo khilaafka Allah inaga hayo waxaan u mahadnaqaynaa macsuumadan ballaaran ee Soomaaliland oo dhan la isugu keenay ciddii samaysay oo ah maayarka iyo maartay golihiisa aad iyo aad u mahadsan yihiin annaga roolkaygu waa mahadnaq wax kale ma yaalaan wixii aanu soo qabanayna waajib bay nagu ahayd la shukri ala waajib maayarka casuumadan ballaaran lixda gobol ka kooban inoo sameeyay mahadda labaadna waxa iskale علي عمر حسن قوليد waxa annaga maanaan soo qaban wax dheeraada waajibna lagu lahaa in baanu gudanay qofkana hawl uu leeyahay markuu qabto in lagu amaano mooyee mahadnaq ballaaran oo saas ma leh anagu waxaanu qabanay hawl qaran ku leeyahay oo loo baahnaa oo inay arintaasi meesha ka baxdo aad iyo aad loo dareynayay dadka intiisa badan ugu dambeyntii halkaas waxa ka hadlay wasiirka xanaanada xoolaha wasiirka warfaafinta oo iyaguna badan barakaysan waxaan uga mahadnaqaynaa maanta maayarka caasimadda haddii maayarka caasimadda maqashaan waa dalkii Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan shantii gobol iyo caasimaddii weyn lixdii gobol Ismaaciil oo kama maqna Boorame tog dheer kama maqna
dadka Soomaaliland ka wada joogtaa sool kama maqana laascaanood kama maqana caasimadu waa caasimadda garanaysa way ayuu ninka dooratay way gudoomiye doorateen marka dal wana ku faan male mar hadaa doorateen shantii lixdii gobolba doorteen marka maanta uu ka soo baxay xilkiisii halkan munaasabada waxa lagu casuumay waftigii ka yimi Ceerigaabo ee ka shaqeynaya hawlaha nabadda ninkii libaaxa ahaa ee buurta inoo soo fadhiyay iyo balaayooyinkii daba socday labada sanadood mushkiladiina haystay dalka ka dhali waayay ka horumar waayay nimankii soo afjaray ayaa halkan lagu soo dhaweeyay ee u bareeray dhaxanta ee u bareeray dhibta ee u bareeray wax kasta ee isu bareeray talkoodu bareeray barasaabkii libaaxa ahaa ee madaxweynuhu xulay barasaab kuma tilmaami karna timbaro horteedun buu taagan yahay dalacaaduna way u xidhantay waa loo codsaday level wasiir in la gaarsiiyaa la codsaday laakiin dalacaadu waa xidhantay kaalintu dalka ugu jiro haddii taariikhda barasaabka laga bedelo dee wax badan baa inaga xumaanaya ciddii ka soo shaqaysay xafladan qiimaha badan ee uu ka soo abaabulay meeyarka magaalada iyo raggiisa meeyar ku-xigeenka xogayaha iyo golihiisa waxaan kaloo mar labaad u mahadnaqayaa hantiilaha hoteelka Guuleed mar saddexaad waxaan mahadnaq ballaaran u soo jeedinayaa guddigii aanu ka wada shaqaynay nabadda Ceerigaabo oo aan runtii anigoo afka xukuumadda ku hadlaya aanu isleenahay la'aantood wax dhaqaaqi lahaa ma jirin Cabdiqaadir Codi Hoon Cable TV Hargeysa